kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis hoose la saxiixday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegeen kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee dawlad goboleedka Hirshabeelle qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino ayna ku bilownaa daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo dadka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Cadcaddi oo hoostago magaalada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo in muddo ah ay maamulayeen General Axmed Maxamed Tareedisho oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay in ciidanka xoogga ay si nabadgelyo ah maanta gudaha ugu galeen deegaankaasi Cadcaddi kadib markii ay isaga baxeen Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in howlgallada si wadajir ay u sii wadi doonaan ciidanka xoogga dalka oo kaashanayo dadka deegaanka guud ahaan dalkana laga saari doono Al-Shabaab waxaana uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in qof walba uu u kaco sidii uu la dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab la wareegistan ayaa imanaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu si gaabis ah ku socday kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab oo bilihii tagay kooxda laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dhinaca kale wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka howlgallo ay ka fuliyeen gobolkaasi oo hor leh ay kula wareegeen deegaano hore gacanta ay ugu hayeen Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka qaybta 27aad kuwa danab iyo macawiisleyda ayaa si wadajir ah howlgalladan u fuliyay waxaana ciidamada huwanta ay gudaha u galeen deegaanada kala ah Cabdi Cagweyne Dhagaxyo Xoor Garasaani Booco iyo waliba sidoo kale Nuur Fanax oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan ciidamada ayaa cagta mariyay saldhigyo iyo xarumo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Cornel Maxamuud Xuseen Ibrahim Bakay oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Hiiraan ayaa sheegay in guulo ay ka gaareen wuxuuna tilmaamay in ujeedka uu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa jiinka webiga si looga hortago weerarada ay mararka qaar ka soo qaadaan halkaasi Bakay ayaa sidoo kale xusay inay dib ugu soo laaban doonin ciidamada dawladda ayna sii wadi doonaan howlgalka inta la isaga xoreynayo kooxda Al-Shabaab guud ahaan deegaanada gobolkana laga saarayo Hiiraan ayaa xudun u ah kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab dagaalkaasi oo dawladda ay sheegtay in kooxda Al-Shabaab lagu gaarsiiyay jab xoogan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo saartay go'aano culus oo ay ku mamnuucday in dalka laga dhoofiyo shaqaale Soomaaliyeed si ay uga soo xoogsadaan wadamada caalamka qoraal ka soo baxay wasaaradda isla markaasina uu soo saaray wasiirka shaqada mudane Biixi Iimaan Cige ayaa lagu sheegay in wixii ka dambeeyo 15 bishan oo talaadadii ku beegneed la joojiyay in dibidda loo diro shaqaale ama xoogsato Soomaaliyeed wasaaradda ayaa sidoo kale ku amartay dhammaan hay'adaha iyo shirkadaha bixiyo adeega shaqasiinta inaysan shaqaale qoran karin dalkana ka dhoofin karin waxay intaasi ku sii dartay wasaaradda in talaabadan ay qaaday kadib markii ay cadaatay inay jiraan shirkado si sharci darro ah dalka uga dhoofiyo shaqaale Soomaaliyeed taasi oo aysan ka warqabin wasaaradda shaqada kadibna dhibaato ay la kulmaan muwaadiniintaasi amarkan ayaa lala socodsiiyay hay'adaha ay taabanayso ay khusayso sida hay'adda duulista hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda dhanka kale wasaaradda ayaa ruqsadii iyo shatiyadii ay hore u bixisay kala laabatay iyadoo baabi'isay kuna amartay shirkadaha ka shaqeeyo arrimahan inaysan shaqayn karin talaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyay la soo warinayay tacadiyo ay la kulmaan gabdho Soomaaliyeed oo shaqaale ahaan loo geeyay waddanka Sacuudiga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa lagu soo waramayaa in si hoose heshiis ay uga gaareen qadiyad muddo badan cakirnayd sida ay xusayaan warar ka soo baxayo sida ay muujiyeen warbixinada heshiiskan lagu gaaray daaha gadaashiisa ayaa waxa uu ku saabsan yahay qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka oo fadhigoodu uu yahay maamulka Jubbaland ayaa muddo dheer ka biyadiidanaa qaabka loo wajahayo xaaladda ciidanka xoogga dalka qaybtiisa Jubbaland iyadoo uusan jirin wax heshiis ah oo u dhaxeeyo iyaga iyo federaalka. Axmed Madoobe ayaa doodiisu ahayd in laga talageliyo qofka loo soo magacaabayo taliyaha qaybta 43aad hubka ay helayaan howlgallada ay qaadanayaan askarta la qorayo iyo waliba sidoo kale mishaarka la siinayo. heshiiska labadan mas'uul oo aan faahfaahintiisa lahaynin ayaa waxaa ka dhashay in markii ugu horeysay muddo 4 sano ah Kismaayo uu tago taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka. taliyaha ayaa sanadka markii uu ahaa 2019 waxaa laga soo celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo sabab ku aadan in Jubbaland aysan raalli ka ahayn. General Bagmadow ayaa waxaa hore u magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Farmaajo. magacaabidaana waxay ku soo beegantay iyadoo Jubbaland cabashooyin badan ay ka tirsanaysay maamulkii 15 May laga adkaaday. tabashooyinka Jubbaland waxa ugu waaweynaa in maamulkii Farmaajo uu ku sameeyay beegsi gaar ah iyo in uu madaxdii waqtigaasi jirtay si gaar ah u doonayeen in meesha ay ka saaraan Axmed Madoobe. warbixinada qaar ayaana muujinaya in maamulka Farmaajo uu dowladaha Itoobiya iyo Kenya kala hadlay qadiyadan hase yeeshee Nairobi ay si xoogan uga hortimid ayna halkaasi isku seegeen. haddaba Bagmadow waxa uu bilaabay kulamo iyo waliba sidoo kale kormeer uu ku sameynayo xeryaha ciidanka xoogga dalka ee Kismaayo halkaasi oo askarta joogto ay aad u yar tahay uusan oolin saad ciidan oo tiro badan. heshiiska cusub ee Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ayaana ku soo beegmaya xilli wadanka uu dagaal ka jiro dagaalkaasi oo lala galay kooxda Al-Shabaab isla markaasina deegaanada Jubbaland aysan wali ka bilaabanin howlgallada lagu soo afmeerayo kooxda Al-Shabaab. ugu dambeyntiina daawadayaal ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta meel fagaara ku toogtay 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka kuwaasi oo hore dilal uga geystay maamulkaasi kadibna lagu xukumay toogasho iyadoo ugu dambeynna maanta xukunkaasi lagu fuliyay. maxkamadda ciidamada qalabka sido ee Jubbaland ayaana raggan oo 2 ka kooban ku heshay dilal ay hore si olakaca u geysteen iyadoo lagu qisaasay maanta magaalada Kismaayo. labadan nin waxaa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Cabdulla Ismaaciil oo lagu helay dambi ah inuu dil bareera u geystay marxuum Cabdilcaziz Axmed Iimaan iyo Cabdi Xasan Isaaq oo isna lagu eedeeyay inuu hore si bareera u dilay Axmed Xuseen Cismaan. sidoo kale goobta lagu tooganayay raggan oo mid ka mid ah uu ahaa nin da' kan kalena uu ahaa dhalinyaro ayaa waxaa ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka socotay maxkamadda iyo dadweyne. gaashaan la dhexe Mawliid Axmed Yaasiin oo ah xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido ee Jubbaland oo toogashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan fulinta xukunada hore ay u riday maxkamadda si ummadda ay u kala nabadgasho. xeerlaaliyaha ayaa dhinaca kale digniin u diray askarta Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka howlgalo deegaanada maamulkaasi waxaana uu ugu baaqay inay shacabka u turaan. Jubbaland ayaa u muuqata inay qaaday dhabihii dowladda federaalka ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh taasi oo toddobaadyadii ugu dambeeyay dardar gelisay xukunada dilka ah ee hore ay u riday maxkamadda ciidamada qalabka sido ee Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.